wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo calanka TV oo qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena habeenimana waxaa ka mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan muddo 3 maalmood ah u socday maanta ku soo gabagabeeyay Villa Soomaaliya kulankaasi oo looga hadlayay arrimaha doorashada ayaa u dhaxeeyay madaxweyne Farmaajo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Lafta Gareen kulankan ayaa ahaa kulan xasaasi ah oo inta badan lagu lafaguray arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale sida madaxweyne Farmaajo markale dib loogu soo celin lahaa waxaa jira arrimo kale oo aad xasaasi u ah oo kulankaasi looga wada hadlay kuwaasi oo soo jiitay iyo sidoo kale in ay isku dayeen madaxdaasi inay dhameeyaan madmadowgii soo kala dhex galay madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle ee Cali Guudlaawe haddaba maxay isku qabteen Cali Guudlaawe iyo madaxweyne Farmaajo sidoo kale maxaa ka jira in Cali Guudlaawe uu yahay musharax madaxweyne arrimaha iyo kuwa kale oo ay ku jiraan musharaxnimada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo uu istaagayo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo kan Galmudug oo doonaya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaan warbixinteena ku qaadadhigi doonaa qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo oo caawa kulan la leh beelaha deegaanka gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso kuwaasi oo kala hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale kuraasta ka soo baxaysa deegaanadaasi waxaa lagu xaliyay dagaalkii ka dhacay shalay magaalada Boosaaso ee u dhaxeeyay BSF iyo maamulka Puntland ayadana warbixin ayaan idin kaga haynaa ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan militariga ayaa deeq gaarsiiyay dadka ku sugan magaalada Bu'aale ee xarunta maamulka Jubbaland ciidamada ayaa dadka shacabka ah ee ku sugan deegaanadaasi waxa ay gaarsiiyeen deeq lacageed iyo sidoo kale raashin isugu jira iyadoona ah markii ugu horeysay ay shacabkaasi arkaan ciidamo Soomaaliyeed 18 sano oo ururka Al-Shabaab xukumayeen kadib haddaba waa sidee xaaladda magaalada Bu'aale maxayse ka qorsheynaysaa dowladda federaalka ee Soomaaliya maxaa ka jira in ciidamo caawa laga qaadayo magaalada Muqdisho loo wado magaalada Bu'aale si ay halkaasi uga sii wadaan bacsi ay ku hayaan ururka Al-Shabaab oo in muddo ah dhibaato ku hayay shacabka ku sugan deegaanadaasi warbixinada kale oo aan haynana waxaa ka mid ah Rooble oo ku soo wajahan magaalada Muqdisho iyadoona safarkiisa saakay uu baaqday kadib markii arrimo farsamo ay ku warbixiyeen inuu safarkaasi u baaqday wararka kale ayaa sheegaya in dowladda Kenya ay u sheegtay Rooble inuu sii joogo ilaa inta ay warbixinadooda ay kala war qaadanayaan maadaama wali aan lagu tawfiiqin siyaasigii ay soo saaran lahaayeen Imaaraadka Carabta iyo dowladda Kenya maadaama dowladda Kenya ay wali u hanqaltaagayso badda Soomaaliya ayna doonayso inay ku yeelato dowladda dhexe siyaasiyiin saameyn gaar ahaan madaxweynaha si ay arrimaheeda uga fashato qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan fadlan daawado haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato channelkeena subscribe dhaw furo gambalaalka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena mahadsanid aan ku bilaabay madaxweynaha maamulka Galmudug iyo midka Koonfur Galbeed ayaa maalmihii u dambeeyay kulan xoog leh waxa uga socday Villa Soomaaliya kulankaasi oo u dhaxeeyay madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin iyo labadaasi madaxweyne goboleed kulankan ayaa arrimihiisa ugu muhiimsan waxay ahaayeen arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale sida madaxweyne Farmaajo markale dib ugu soo laaban lahaa kala warqaadasho ay kala warqaadanayeen siyaasiyiinta iyadoo sidoo kale wakiilada madaxweyne Farmaajo u qaabilsanaa gobolada ay dib ugu soo laabteen magaalada Muqdisho si ay ugu warbixiyaan arrimaha doorashooyinka iyo halka ay marayaan awoodda nabad iyo nolol ay ku leedahay doorashadaani iyo xildhibaanada hadda gacanta ugu jira sidoo kale in la hirgeliyo ballanqaadidii loo sameeyay xildhibaanada ay ahaa in guryo looga dhiso magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka Maamul Qadiijo ilaa ay inta doorashada ka soconayso sidoo kale wararka ayaa sheegaya in la iska wareystay sida xildhibaanadii lagu soo hay lahaa meelihii lagu doortay ilaa inta aysan imaan magaalada Muqdisho maadaama wali qorshihii loogu talagalay xildhibaanadaasi lagu dejiyay magaalada Muqdisho aysan soo dhameystirmin haddaba kulanka u socda madaxdan ayaa asalkiisu ku qotamaa sida madaxweyne Farmaajo oo mar kale xukunka ugu soo laaban lahaa iyadoona hadda uu Villa Soomaaliya ka socdo diyaar garow aad u xoogan madaxweynaha ayaana saakay warbixin ka dhageystay wakiilada u joogay gobolada saddexda maamul ee ku daaban dowladda federaalka ee Soomaaliya waa Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug warbixintan kadib qorshe kale ayay ka fariisteen madaxda maamulada iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo waxaana kulankan la dhigi karaa waa midkii ugu adkaa oo ugu waqtiga dheeraa marka la fiiriyo kulankii 3 maalin qaatay u dhaxeeyay
madaxdan aan hadda idin sheegnay. dhanka kale waxaa jira warar sheegaya in Cali Guudlaawe uu isna kulanka ku soo biiri doono maadaama la xaliyay madmadowgii u dhaxeeyay isaga iyo madaxweyne Farmaajo. khilaafkaasi ayaana salka ku hayay kadib markii uu Cali Guudlaawe isku dayay inuu soo sharaxo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaa arrintaasi aad uga carooday maadaama isaga iyo Cali Guudlaawe ay ballamo kala dhigteen. Cali Guudlaawe uu ka carooday in madaxweyne Farmaajo uu qoorqoor la rabo madaxweynaha sidoo kalena Koonfur Galbeed madaxweynaheedana uu la doonayo gudoomiyaha baarlamaanka. Cali Guudlaawe ayaana arrintaasi ka carooday kadibna sheegay inuu shaacinayo musharax madaxweyne inuu yahay wuxuuna shir la galay xildhibaanada laga soo doortay deegaanadiisa oo aan weli ka soo tagin magaalada Jowhar. kulanka Cali Guudlaawe iyo xildhibaanadaasi ayaana waxyaabo kala duwan dadku u arkayeen maadaama warbixinada qaar ay sheegeen inuu yahay musharax madaxweyne halka kuwa kalena sheegeen in Cali Guudlaawe uu xildhibaanadaasi u shukaaminayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah musharax madaxweyne oo hadda loolan adag uu kala dhaxeeyo musharaxiinta kale u tartamaya kursiga ugu sarreeya dalka. dhinaca kalena odayaashii ugu badnaa oo ka imaanaya gobolka Bari ayaa yimid magaalada Muqdisho iyadoo caawa ay kulan la qaadanayaan madaxweyne Farmaajo. kulankaasi ayaa la sheegay in madaxweynuhu ay iska wareysanayaan isaga iyo odayaasha isimada boqorada ka soo jeeda deegaanadaasi sida loo xalin lahaa khilaafka xoogan ee ka dhaxeeya BSF iyo maamulka Puntland. sidoo kalena madaxweynaha ayaa warbixin ka dhageystay isimadaasi iyagoona kala hadlay xaaladda magaalada Boosaaso. odayada ayaa u ballan qaaday madaxweyne Farmaajo in kuraasta ka soo baxaysa magaalada Boosaaso oo boqolkiiba boqol ku tashto ay soo saarayaan xildhibaano isaga taabacsan maadaama ay doonayaan mideynta dalka iyo sidoo kale in horsocod la sameeyo. madaxweynaha ayaana ka gudoomay hambalyada iyo mahadcelinta iyo sidoo kale dhiirigelinta ay odayadan ama isimadani ee madaxweynaha u soo bandhigeen. waxayna ka wada hadleen horumarinta dalka iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka. ballanqaadka odayadan ayaana ku soo aadaya xilli madaxweyne Farmaajo uu shalay la shiray odayaasha beesha Hawiye boqorada dhaqanka iyo dhammaantood. wuxuu sidoo kale shir adabay u xireen la qaatay beelaha degaa gobolka Gedo. warbixino kale ayaa sheegaya in beesha degta gobolka Hiiraan gooni gaar ahaan beesha tabashada qabta ee Xawaadle oo sidoo kale madaxweynuhu la balansan yahay oo iyadana uu la qaadan doono shir xasaasi ah. shirarkan oo madaxweyne Farmaajo la yeelanayo beelahan ayaa imaanaya xilli dalku uu doorasho galayo isla markaana madaxweynuhu uu dareemayo cadaadis siyaasadeed oo uga imaanaya dowladda shisheeye iyagoo adeegsanaya siyaasiyiin ka soo jeeda beelahaasi. balse beelaha ayaa madaxweyne Farmaajo raaligelin siiyay iyagoona ka tiray tabashooyinkii uu ka qabay siyaasiyiinta ka dhashay beelaha uu madaxweynuhu la kulmay. inta badan waxayna siiyeen ballanqaad ah in madaxweyne Farmaajo uu ka soo laaban doono deegaanadooda ay siinayaan xildhibaanada ugu badan ee ka soo gala deegaanadaasi. kulamadan isdaba joogga ah ee ka socda fil Soomaaliya ayaa waji kale u yeelay jihada siyaasadeed ee Soomaaliya maadaama marka hore xoog wax lagu raadinayay balse hadda ay noqotay xuraansi iyo in xal wax lagu keeno. dhinaca kalena ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidanka xoogga dalka ayaa magaalada Bu'aale gaarsiiyay raashin iyo deeq lacageed oo ay ugu tabarucayaan dadka Soomaaliyeed ee in muddo ah ururka Al-Shabaab ay halkaasi ku haysteen. dadka shacabka ah ayaa aad u soo dhaweeyay ciidamada dowladda ay la wareegay gacan ku haynta magaalada Bu'aale ee xarunta maamulka Jubbaland. waxa ayna sheegeen in muddo ah oo maamul qabeen inay arkaan ciidan dowladeed oo amnigooda suga sidoo kalena ka celiya cadawga banaystay dhigooda. shacabku waxay warbixin siiyeen ciidamada iyagoona mahad uga celiyay gargaarka ay soo gaarsiiyeen maadaama muddo 10 sano ah ay wajahayeen caburin iyo dhibaato aad xoog badan. shacabkan oo si fiican u soo dhaweeyay ciidamada dowladda ayay hadda dowladdu gaarsiisay deeq lacag iyo isugu jirta daawooyin iyo sidoo kale raashimo. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee qabsaday meeshaas ayaan ilaa iyo hadda howlo kale ka qaban oo aan ahayn sugidda amniga. lama ogo waxa uga qorshaysan dowladda awal warbixino kale ay sheegayaan in dowladda dhexe ay geenayso maamulna ka dhisayso magaalada Bu'aale iyadoo aan kala tashan madaxda ugu sareysa maamulka Jubbaland oo hogaamiye Axmed Madoobe. warbixino kale aan loobin ayaa sheegaya in ciidamada Jubbaland ay u diyaar garoobeen dagaal sidoo kalena ay ciidamo geeyeen meel aan wax dheer u jirin magaalada Bu'aale. lama oga waxa ka dhici doona iyo waxa ay foolanayso arrintaasi balse waxaan warbixinadeena dama kuula wadaagi doonaa xaaladii ugu dambeeyay ee magaalada Bu'aale. haddaba halkaa waxaa inooga wararkeena habeenimo fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad soo booqto channelkeena subscribe oo furo gambalaalka si aad u noqdo daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena.